مرة إلهي قام هذا وسوكاي كان أنا قلنا بدرة. Firstly, fire hazard has 4 fire exits, 2 here and 2 at the back, just in case of fire hazard. Inshallah, it doesn't happen. I'd like to welcome worldwide Somali students and professionals to this great endeavor. May Allah reward them for the great things they have done and the great things they are doing. Inshallah, may Allah help them in the future endeavors. So most importantly, I would like to welcome you guys, the audience. Without you guys, this event would not happen, and worldwide Somali students and professionals would not function. Thank you very much. Our hosts for this evening are Abira and Abdul Hafid. My name is Abira Hussain. I'm co-hosting here with Abdi Hafid, who works for Universal TV. He's helping me today to host the show. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادوكتين وياي وعبد الحفيد آد محمد فرح سنة إذا هالكان تمادن كان سوق يبقشين نجنا جيبتين invitation كليدين في دي ولقوا عزين يو ضد كاني ضل كاني الدين تاني ما تسندين. I'm going to be talking to you guys briefly about Worldwide Somali Students. I joined the organisation a year ago. It actually began within this university by a few students who had a passion to kind of go home and to use their skills and their expertise for Somalia and to have a positive benefit. So I think the most important thing about this organisation is the concept that we're trying to push the idea of for Somalis by Somalis. We want to, not have the meddling or the presence of NGOs that for 20 years still haven't had any impact on Somalia. So this organisation, inshallah, hopes to go back home next year, inshallah, and to set up projects to rebuild Somalia. The 3 ones are agriculture, medicine and teaching, and inshallah, hopefully, I'll get to actually go back home. I'm sure many of you guys have a passion and have an interest in their country and their homeland that actually want to rebuild it and be a part of rebuilding it. And inshallah, I hope that we can kind of dispel the idea that going back to Somalia and actually having an impact is something that's too far-fetched and that's an impossible idea. But hopefully, throughout this talk, you're going to have a better idea and a better understanding of what the projects are going to be and how, hopefully, inshallah, you guys can get involved in the project. And hadii la yiraahdo intaas ayaan doonaynaa af Soomaali ku yiraahdo si degdeg ah. Organization kan halkaan ayuu ka bilowday bay tiri gabadhu markii uu horeysay jaamacaddan ayuu ku dhashay ku weynaaday dabadeedna dunida oo dhan ayuu ku faafay. Ujeedada laga leeyahayna waxay tahay in dadka Soomaalida ah meel kasta oo dunida joogaan lagu mideeyo in ay wax qabsadaan ay ayagu gacantooda maalaan ay ka baxaan gacanta cadawga shisheeye iyo nimanka doonaya dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena inay ka iibiyaan NGO-yada iyo dadka shisheeye oo danta aan naga lahayn. intaas waxa kale oo la xiriirtay in ujeedadu ay tahay in sanadka soo socda summer time insha Allah ta'ala dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxbaratay iyo professional ay dalkii ku noqdaan 3 qaybood oo waaweyn ama 3 mawduuc oo waaweyn ay ka fuliyaan caafimaadka beeraha iyo waliba waxbarashada si dadka looga saaro mugdiga markaad ka baxdinna waxaad garanaysaa qofka ku jecel iyo qofka ku neceb iyo cadawgaaga waxa uu yahay. Our next speaker is going to be Dr. Sharma Mohammed, who is the head of the professional side of Worldwide Somali Students, and we'll be speaking about how professionals that have studied can use their skills to go back home to Somalia and most importantly have an impact in the Operation Restore Home. So you guys can welcome him. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa mahadsantihiin kulligiin akhyaarta oo sharafta leh. Waa ogahay dad badan horta in meelo kala fog ka imaadeen caawa wiil ahdaay la hadlayo Leeds ka imaaday marka kulligiin waa mahadsantihiin waqtigiina aan siisaan waxaan ku bilaabi lahaa microphone horta technical issues aan haysta marka anoo raba inaan kan qabsado kan u soo dhawaado waa isku dhaweynaa labadooda mimaqlaysa hadda iska dhigi karaa inta okay horta waxaan ku bilaabi lahaa inaan ilaahu mahadceliyo in alxamdulilah
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سيدا قاركين أوتهين برنامج كان قد بدنا والله كسو جري سنة بركي لصودا في ورنتي نبركود ولكتي آدن أددالي marka xoogaa wax yar anoo og dadka trustees ka mid ah inay rabin inaan magacaabo magacooda sheegaya dumarkaana ka bilaabaya meeshaan saa u jeediin markastaba markii wax la qabanayo dumarka u badan marka gabdhaha haddaa ka bilaabo Maryam Yusuf Beera Hussein oo hoos noo ah Hamdi Khaliif oo manager runtii eventigan caawa ka ahayd waa mahadsantihiin dhinaca ragga Maxamed Gacal Dr. Cabdiqani iyo directorkeena Qaasim Cali teamka asagoo runtii saas ugu weyn yahay Xamza iyo Saciidna joogaan taas haddaa kasoo gudbo waxaa dhihi lahaa horta aniga ma ihi qof oo arrimaha Soomaaliya ku takhasusay siyaasina runtii ma ihi day-to-day workigana runtii as a scientist aad ay ugu fog tahay barnaamijkan oo kale waxa ugu imaan inaan qabano waxa uu istaagsanahay meeshan kaliya inaan muujiyo Soomaalinimadayda iyo jaceylka u qabo wadankeena hooyo iyo dadkeena Soomaaliyeed kulligeen waa ogtihiin waana jeceshihiin Soomaaliya inay soo kacdo waana rabnaa kulligeen Soomaaliya inay ku soo noqoto wadamada adduunka ugu sareeya wadamada Afrika ugu sareeya laakiin walaalayaal Soomaaliya ma ku soo kacayso riyo kaliya dadka wax qabta markastaba intee riyoodaan ee ka dhigaan riyadooda wax la taaban karo marka Soomaali haddaan nahay waxaan looga baahan yahay yes vision waa haysanaa Operation Restore Home tusaale noo tahay worldwide Somali students and professionals waxay noogu yeeraysaa wadankii inaan ku noqono June 2012 oo si oo aad u soconayo sanadada soo socdana aan u wadno barnaamijyada wadankii wax ku biireen laakiin taas waxay ku imaanaysaa kaliya haddii annaka aamidowno sidoo Mustafa noo sheegay marka waxa loo baahan yahay marka barnaamij fiican oo ku taabanaya runtii marka maqashid ina adigana waxa dhiiban kartid dhinaca energy-gaaga waqtigaaga maalkaaga inaad dhiibatid Soomaalida caado waxa u ah markii barnaamijkan oo kale intaas kugu imaano oo aan ka hadalno qaarna inay macnaha inay hal dhig ku maqlaanta kalena uga baxdo qaarna inay dhahaan Ilaahay garabkiina ha galo yes Ilaahay garabkiina ha galo waa muhiim laakiin waxa loo baahan yahay taas inay sheekada inay ka weynta kulligan waa ognahay haddii xadiidkana la fiiriyo Umar ibn Khattab wuxuu noogu wariyay nabigeena xadiid inuu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo laga soo wariyay inuu sheegay إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى معناها هذا سود ويو فعل كستا وحا أصل نية فيعل إلهي وحو نوشي قفك إنو قفك مسلم كإنو كأبا المرينايو وحو النية لإمامي marka waaba ognahay Ilaahay dadkan waqtigooda nasiiyo iyo energy-gooda iyo maalkooda inuu ka abaalmarinayo annaka waxaan nooga baahan yahay dadka tacliinta haddaan nahay dadka hadda soo kacay haddaan nahay dadka aqoon-yahanka ah haddaan nahay inaa wixii fikir ah inaa ku biirno wixii advice ah inaa ku biirno oo wixii maalna inaa ku biirno qaasimaan hadhow nooga sheegaa insha Allah waxyaalahaas waqti badan ma haysti leydana bilownay marka insha Allah laba qodob insha Allah rabo inaan soo jeediyo anigoona og dad oo gadaal noo fadhiya inay naga rabaan xogaa Ingiriis inaan ugu turjumo waxa sheegayno marka insha Allah taas waan isku dayaa inaan ku soo koobo hadhow I realize for our audience at the back that you're expecting us to speak English at some point and inshallah we will I will be summarizing what I'm saying at the end in about 5 to 7 minutes. And hopefully from the presentations and the videos you understand what the essence of this organization is.
qodobka koowaad aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye midaynta dadka tacliinta leh. Worldwide Somali students and professionals sida ogtihiin runtii waxa injiin u ah waa ardayda Soomaaliyeed. magacana taas tusaale u yahay. laakiin kulligeen annagu og adduunka soo u shaqeeyo ma dhihi karno ardayga ka sugeynaa wadankii inay soo celiyaan. waxa loo baahan yahay marka dadka tacliinta leh inay barnaamijkan wixii tabar ah inay ka dhiibsadaan oo ka qayb qaataan. waxaana dhihi karnaa runtii dadka tacliinta leh hadda dad midaysan ma aha. Worldwide Somali students waxa loo aasaasay waa inay daaweyso arrintaas. sidee ku daaweynaynaa waa marka su'aasha. anigu waxaan rumaysanahay sidaa ku daaweynayna ma aha sida caado noo ah Soomaali haddaan nahay siyaasad inaan ku boodno. dad waxaana jira oo naga mid ah oo naga dhaadhacsiiyey 20kii sano ugu dambeysay Soomaaliya siyaasadeeda haddii la hagaajiyo wadankii inuu soo noqonayo. waana ognahay taas inay dhicin. ilaan 20kii sano ugu dambeysay waxaa ku jirna oo ka fakaraynay siyaasad ma ahayn wax kale ma ahayn. marka waxaa dhihi karnaa walaalayaal dadka tacliinta leh noo sheegaan anoo magacaabeynay dadka tacliinta leh waxay dhahaan Soomaaliya 3 qodob ka maqan oo haddii loo daaweeyo 3daas qodob wadankii inuu soo noqon karo. 3daasna waxay yihiin midda koowaad wax lagu magacaabi karo qowmiyad Soomaaliyeed oo runtii maqan oo jirin. midda labaadna waxa waaye national institutions wax lagu magacaabi karo. wadankeena hadda ma laha hal office oo la dhihi karo dawlad Soomaaliyeed ka shaqeysa oo dadkooda wax ugu qabata. midda saddexaadna waxa waaye hoggaan oo runtii daacad ah oo dadka iyo dalka ka fakaraya. 3daas qodob markaa weysi walaalayaal all the indicators adduunka oo ka shaqeeya oo wadamada lagu kala saaro hadda ma la dhihi karo Soomaaliya haddii lagu magacaabo failed states way qaldan yihiin. ilaa 3daas ma jiraan. waana waxa wadamada lagu kala soco. marka annagu og taas aniga waxa fikrad ahaan sharmarka ahaan waxa soo jeedin lahaa dadka tacliinta leh oo dhalinyarada ah inay ka shaqeeyaan sida ayaga isku midayn lahaayeen. taas ee arrinta Soomaaliya ku soo noqonaysa. siyaasad waa tiirka ugu dambeeyay oo wadanka lagu taagayo ma aha tan koowaad. taas aniga dhihi lahaa. qodobka labaad aan rabo inaan soo jeedo anoo waqtigu ugu yaryahay waxaan rabaa inaan runtii dhaho barnaamijkan si kasta oo u ballaaran yahay waxaana looga baahan yahay wixii oo vision ah intaan dhahno visionkan wuu socon karaa ma ahe inaan ku darno ficilkiiaan looga baahan yahay. intaan dhihi lahayn wuu ballaaran yahay ma ka bixi karno 3 programs ma ka bixi karno 100,000 people oo registereeyay. yes waa ka bixi karnaa because haddii annaka arriyo wax hagaagaya iska yar. marka dadka waxaa ka baryayaa inay Soomaaliya ka daalin. Soomaaliya rajadeeda way fiican tahay. wadankii wuu soo noqonayaa. although waa lagu tilmaami karaa runtii wadankeena inuu yahay mid oo jirkiisa weli nool yahay laakiin tabartiisa ay yar tahay. yes at least weli qalbigeena uu shaqeynayo oo jirkeena uu nool yahay. taas laftirkeeda wax lagu faana inay tahay walaal. marka halkaas insha Allah anoo waqtigu yirahay ku soo keenaya wax yar summary ku bixinaya waxa sheegay anoo luqad Ingiriis ku hadlaya. For all our respected guests, I thank you for giving us your valuable time, for coming here and taking the time to be part of this great program. And I've been asked to say a few words about how we can unite Somali professionals behind Operation Restore Home. And before I give a summary of what I said in that area, I would like to say that as a community, when we come together like this, and we talk about doing things for our country and our people, we tend to get tunnel visions and we tend to think as if this is where time begins and nothing else before actually contributed to that. But the reality is
there have been many organizations in the past that have tried to do a similar program as this. Some of them have made progress, some of them have failed. And I believe that if we are going to unite Somali professionals to do charitable work for their country, then it begins with us knowing each other. It begins with us knowing who we are as a people, what we want to do, and then moving forward in synchrony in one step. And I'd just like to say, for all the charities that are represented here, I know some of us have gotten together in the past few months and have tried to build greater ties within Somali youth movements. That is the sort of thing that we need if something like Operation Restore Home is going to succeed. And I would like to encourage all of you to continue doing that and to, at all costs, avoid working in silos. Because when we do that and we give into the materialistic, individualistic mentality that exists in this society and many other Western countries, then we really are not empowered to think about our people and our country. And we need to always remember that we are all one community. If you think about the Somali problem, it is actually one of many paradoxes, because we are probably the only country in Eastern Africa that has a common language, that has a common history, that has a common culture, and yet we fight over a country which is too large for all of us to live in and to live and govern. We are fighting over trivial issues. We have so much in common, and yet we focus on the things that divide us. Where we are from, regionally, what clan we're from, and these are the sort of things that really set us back. And if we continue down on that path, the next 20 years will be exactly the same as the last 20. And so as youth, as people who are coming up now, we need to present a different vision of Somalia that says, although our forefathers have failed to unite, we don't look at clans. I don't care if Qasim or Mohammed is from a different clan as me. I just care that he's Somali. That is the sort of mentality we need if we're going to succeed in Operation Restore Home. And I hope, and I know, that that is the sort of mentality that Worldwide Somali Students and Professionals brings. The last thing I'm going to say is we desperately need to raise our discourse. As a community here in London, we have many cafes where many of our older generation Somalis gather, where they follow who's up, who's down in the politics, where nothing of real value and concern to the Somali cause takes place. And instead of that, I would hope that we can instead think about things that are common sense, like uniting Somali professionals. We don't have, where is the Somali Association of Neuroscientists? The Somali Association of Engineers? Do they know each other? Where are they based? Where are their offices? They don't exist. And so we need to think about these things that will have much better impact for our country rather than worrying about politics. So let's raise our discourse, let's get to know one another, let's unite, and let's move forward, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. kaasi waxaa Dr. Sharmaaka oo ku mahadsan wanaag iyo khayr buu noo sheegay haddii aan waqti badan siin lahayna waxaan hubaa inta in ka badan oo ka faa'iido inuu oran lahaa nasiib darro waqtiga u jeeday Soomaalidu waa dad gabiya oo xirfado kala duwan leh waxaan jecelahay qaybta entertainment-ga shaaciyana ku soo dhaweyno asagoo halkan ka soo jeedinta waa dixkamaya oo qaali ah shaaciy ku soo dhawaam Assalamu alaykum magacay waxa shaaciye inkastoo uu yiri waan gabiyaa anigu waxaan tiriyay isku marka dadka gabayada bartay amba shaaciyadu yaqaan haddaan jiriyo shaaciyada iga raali hadaya macnaha markii aan qoray macnaha waxaan idin hayaa laba oo aan idin akhri doono midda koowaad waxaa la yiraahdaa Soomaaliya markii aan qorayay waxaan jirkayga ka dhigay Soomaali weyn ayaa ka dhigay jirkayga
markaasna waxaan isiri ka waran haddii uu jirkaygu isdagaalo oo dagaal sukeeya ka dhex dhaco maxaa dhici ayaan isweydiiyey mo ya waxaan isiri haddii maaragtay calooshu ay baahato gacmuhuna ay raashin diyaar leeyihiin afkuna uu yidhaahdo anu iskala furi maaye arrintaas war oo dhima wariga dhammaantiis waxaan idin bilaabayaa maadaama waqtigu yaryasaan u malaynayo soomaaley waxay ku bilaabanaysaa sida tan adduunyada dad baa isku tagoo dunida meel gaaray dayaxay dayuurad saareen ee daliilsa taasi cudur kasta ay daaweynayaan dunida laga helay qaramada midoobay dad baa qaran ka dhigay wadda Mareykanka waa dad isku tagay dad baa inay isku tageen hal cudayaani BBC-da iyo CNN-ta wada aragtay codkooduna waa reer galbeed waan aragnay Soomaaliya aan isku tagno waa danteena Soomaaliya adduunyada hal bay noo arkaan isku wada egnahay iskaashatu ma kuftaa la yiri shinni isku tagtay malab samaysaay libaaxay isku tagay maroodi dili karaan madweynta Indiya waa biyo isku tagay wabinayl waay duufaan isku tagtay carada duufisaay dhulkan adduunyada fidsan waa ciid isku tagtay salka geedaha waa laamo isku tagay rubna isku tagay qofka samaysan tahay haddaad gacan la adag facaaska ma celi haddaad la adag waa duufisaay haddaa indho la adag ku fikirtaay haddaad afla adahay cod la'aan tahay Soomaaliya aan isku tagno waa danteena Soomaaliya adduunyada hal bay noo arkaan isku wada egnahay qabyaaladaad wadaan meel naga geeyay reer hebel heer ma gaari doonaan Soomaali isku tagtaa meel gaari karaysa aaga adoo daashiyo cilmiga dhamaysay shaqaad doona istaad wada shisheeye markii wajigaaga la arko Soomaali socdaa tahay shaqa lagu diida Soomaalinimadaada adigana qabyaalada qadirsaa isla weyn tahay Soomaaliya aan isku tagno waa danteena Soomaaliya adduunyada hal bay noo arkaan isku wada egnahay qabiil hebel waa isku daday dadkoo dhan waa isku daday aabba iyo hooyo waa aadan iyo xaawo Soomaaliya ka nahay isku dadnahay Soomaaliya aan isku tagno waa danteena Soomaaliya adduunyada hal bay noo arkaan isku wada egnahay waa mahadsantiin midda labaad waxaa la yiraahdaa intaana la jiif waayay sida caadiga ah markii xaqa iyo xaq darrada la isku daro oo dadku ay diidaan inay kala saaraan oo ay la jiraan xaqa waxa dhaco waxaan idin sheegi doono ay idin sheegi doonto sidaanay ku bilaabanaysaa intaan dhashay intaan rooray intaan maqlay intaan joogay intaan arkay intaan duubay intaan maqlay intaan joogay intaan gartay intaan raacday intaana la jiif waayay ubad maran calooshooda dumar in ka daadayso oday qalbiga ooyaayo wadaad waran la boodaayo inaan qarxi saxmoodaayo shisheeyaha hubaynaayo sokeeyaha ku fiirsaayo intaana la jiif waay caruurtan macluul dhaafsan daamaha qalfoof moodo gacmaha alwaax moodo indhaha gudweyn moodo dhogortaan jiilaal moodo faruuryaha dhagxaan moodo aabbaha bukaan moodo hooyada maliil moodo yaa cida ayaad moodo intaana la jiif waay si kastaba maxaan moodnay Soomaaliya maxaan moodnay qof la dilay maxaan moodnay qof si dumar maxaan moodnay in la isdhaco maxaan moodnay towbadiid maxaan moodnay carab alle maxaan moodnay roob da'ay miyaan moodnay nabad degan miyaan moodnay ku dalxiis miyaan moodnay ku tijaar miyaan moodnay ku nasteex miyaan moodnay sida tan haddaad moodnay dhibka jira maxaan moodnay si kastaba haddaad moodnay ma rabtaa inaad moodnay alla bari maxaan moodnay قرآن أخي سبحان مودي سكبح سبحان مودي صلاة بدي سبحان مودي طم بالدال محال مودي فوق ديجا محال مودي وين بديدي محال مودي أجل ديجا مياد أجل ديجا مياد مودي ودجنا مياد مودي سيدة تنهداد مودي داعد ولا محال مودي ديقول ديجا مياد مودي ودنا مياد مودي سيدة تنهداد مودي والإله محال مودي قرمنا مياد مودي حق ما قرت مياد مودي سيدة تندان مودي أبو لهب محل مودي جنة تجمياد مودي سيدة تندان مودي سيدة أنا اللي جيف واي وبحسن والله أنت سكون رماتي وحن كلو سوجي دينا يا أبيتان
worldwide Somali student and professionals anigu hore uma maqal waan maqal wax yar waqti adiga 2 isbuuc ama 3 isbuuc ka hor amba ka hor ma garanayo waqtigii yani hawl fiican bay wadaan marka waa in la taageera fadhi ku dirignimadan la isku joojiyaa يعني سيدا لا sheegay dib badan baa wadanka ka jiro dad kala dilayo 20 sano dilayay odayaashiina dhalay way ka sheekaystaan fadhi bay wadaan marka waxa loo baahan yahay dadka wax bartay wadankan aba wadamo kale ku bartay يعني وين كعان ayaan soo jeedinaa anigana waad maasantii. Our next speaker will be Mahmoud Ibrahim, who is going to be the head of the agriculture project. He's a farmer himself. He went to Reading University, where he studied agriculture and then further mastered on to tropical agriculture. So he'll be speaking about how we can serve farmers in Somalia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله. هل كان وصل استاذ إن شاء الله تعالى إن وحي درينك إنك عيي عن أذنكنا وحي كدرين سينه سي أذنكنا أذنو لك عليه إن شاء الله تعالى. وحي دريمدي إنك عيي وحا كم بذها مركا أرقني لباتوين كودن كتاجنا وقتيدي لصور رافي مركا dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhiiratay baa waxay ku dhiiradeen in ay sameeyaan isu tag aan markaas la dhahan yani cid kama horeeyay dabcan waa lagu horeeyay fikradda waa la isu keenay laakiin aan propaganda loo sameeyay si aan iyagu ay bilaabeen propagandada si loogu sameeyay sidaas darteed waxaan damacnay in aan yani Operation Restore Home and Sameno kaas oo kaashanaya in la sameeyo projectyaal wadankii wax looga qabanayo sababtoo ah waxyaabihii hore la isku dayay wax ay noo saacidiyeen baa arki weynay dadkiina waxaan aragnay inay macaluul u sii la'anayaan wadankii laakiin annaga marka sababihiina kiciyay waxaa ka mid ahaa abaarihii ka dhacay wadanka iyo dadka macluusha qabsatay sidaas darteed waxaan damcay sababta noo keentay macluusha iyo dhibaatada wadanka ka dhacday bal xoogaa inaan gadaal u siqano oo fiirino maxay ku timi marka hordhacaan oo dhan wuxuu noo keenay inaan sameeyno mashruuc la yiraahdo Ramas project Ramas waxa la yiraahdaa roobku markii uu da'o hawska ugu soo horeeyo dhaca oo soo baxa marka annaga Ramas baan nahay يعني worldwide Somali students and professionals أبارتي يبكي ودم ونداي هذا الروب بداي إن شاء الله تعالى professionals يبقى نوسك عن مركز الرماس وبروجكت أي إسكسو دوين دالين يرو Somaliyeed أو وحبرتي يبروفيشنال أو إسكو تحلم شناي إن يودن كود وحقبتان محيطها استراتيجي جود وحوي هاي إن أي ودن كي كسران فقرقان إدباتنا عن تلقانته أو واحد كستهرسيت هو إن أي كسران أو أي جارسيان ودن كي هير وسيلف سفيشنت وكان نقضه يعني إسكوفلنان وحصوصارك وكجارو منتظر. فيشن كان الدولة وحوي هاي إن أن استاجنه يعني مالين كستا يعني Soomaali da magaxumada iyo dhibka haysta oo ah in ay mataqaanay loo soo gurmado oo adduunweynaha u soo gurmadaan oo foolxumo fishinkeena marka waxa weeye inaan foolxumadaas joojino istiraatiijigeena dheerna waxa waaye inaan wadankeena self sufficient ka dhigno waa iska istiraatiiji dheer laakiin haddii aan iskaashino insha Allah taala aan gaarayno talaabada aan hadda qaadaynana waxa waaye inaan تلاوين كان سان solution وهل لهي أنا هذه إن شاء الله تعالى مركا أننا وحرنا إلى coordination كسمينه وحلالي يوحي كسابسن وحسوسارك يو وحلالي وحي علم أوله إن أن coordinator أنقنا إذا أنقنا السكان
dadka Soomaaliya raba inay ka saaraan abaarta yani iyo dhibka am self sufficient ay gaarsiiyaan fikrad ahaanna aan keenno indhahno waxaan waxay u baahan yihiin in wax la qabto marka wax hadii la qabanayo waxa loo baahan yahay dhaqaale lagu qaban lahaa waxa u baahanahay basis aan degno oo dhahno calan laga taagan dhaho waa kana Ramas project halkaan ay joogtaa marka basekiina waa lagu soo raacay waxa leeyahay okay meesha wax lagu qaban lahaa waa kana dadku isugu imaanayaan marka maadaama uu hadda jiro dibaandiga cuntada ay wadankii ka jirto annagiina aan keen waxayna aqoontii waxa loo baahan yahay boolisigana inaan dhex galno ma rabno oo dhahno yani kooxna wadankii koox baa ka jirta maca yani inaan dhex galno ma rabno siyaasad marka shacabkii baan ka bilaabayna dhahaynaa shacabo anagoo kale sidaan nahay Ramas project saan u set up gareynay adinkana waa inaan u noqotiin gacmihii iyo lugihii socodsiin lahaa annaga xididadii baan nahay laakiin adinkana gacmihii iyo laamihii iyo aad noqonaysiin insha Allah ta'ala marka maadaama aan haysano dhul nagu filan oo aan wax ka soo saari karno haddaan Soomaali nahay oo dhulkaas oo yani 38 milyan oo hektar baa wax laga soo saari karaa 1.7 milyan baa wax laga beeray waa garan kartiin يعني مدام 1% 2% مدام انت wax laga soo saaray wadankeena 60% ina wuxuu ku fiicaya in laga soo saaro cunto ciideeni waxay ku fiican tahay nooc artificial ciideeni doobay waa haysanaa caragruud waa haysanaa carro ku fiican yani xoolaha waa haysanaa yani manugu resourcigi xoolihii iyo dhulkii nuguma yara biyihii Soomaaliya waxa dhahaa biyaha ku yar laakiin aniga ma rumaysni yani waxa la yiri 14 FAO da informationkii ugu dambeeyay soo saartay waxay ahayd 14.7 cubic kilometer oo biyo ah inay Soomaaliya sanadkii resource ahaan u haysato laakiin 6% oo kaliya ay ka isticmaasho haddii annaga nin kasta uu yiraahdo okay aniga waa iga go'antaa wadankayga inaan caawiyo wax yar baa ka baxaya wax weyn uu soo saacidina insha Allah ta'ala marka haddii annagii fikradii keenay dadkana waxa looga baahan yahay inay naga qaataan oo nagu taageeraan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri lan naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata mawana dhulka idinkaga yeelin واحد كفلا حتى نوشيني هذا دمتين فكرة داس من يعني آيات داس من Soomaaliya aad iyo aad bay sax u tahay dhulkeena waa nagu filan yahay hadii aan dhiman iyo hadii aan nool nahay sidii aan waxba soo saaran lahayn annaga un bayna sugaysan insha Allah ta'ala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو حسن محمود كاشف وعاشر محمود أو أصور له شيء عبارة خبرتي سيء وحنا وكذا معصية يا مصر وجعلها إنه ذلك هو يقاربه وحنا حقيقة حسوسية خيرات كل كانوا وليه كل جنا حسوسية سذا إن أنا باهي وقبلين إن دودع عشان الله كان مثال يرى هذا الجنسية أنت على next speaker ويرنين حلي قالوا كلاس Soomaaliya markii roobku ay daan oo barwaaqadu ay timaado dad baa waxa laga yaabaa inay biyo ku beeraan deyn ay ku soo arqaateen sisin oo kala miisaal markii sisinta soo godo siyaabo kala duwan looga faa'iideysan karo ama la cuno ama saliid laga dhigan karo Mareykanka wuxuu keenaa markab saliid cadeeyo labada gacmood isku dhagan yihiin wuxuuna ku yiraahdaa sanadkii hore dhaqaalaha hoos u dhacay alaatan ku siinaya noloshaada inta ka dhiman saliid cadeey Mareykanka uga baahanaysa therefore beeraleydeena iyo dadka wax qabta waa inaan gacan siinaa oo aanu kaalmaynaa oo aanu encourage garaynaa si aanu uga baxno quranka waxa kale oo xasuusiyay oo arkay filim laga soo daayay TV-da Soomaalida oo mid kamid ah oo hadda ma xasuusto laba hooyo oo Soomaaliya ayaa waxay suuqa bakaaraha ku iibinayeen tabaandho xabuub tabaandhadaas oo mid fresh oo iminka soo gooday
iyo mid talyaaniga laga keenay tabaanadu annaga noo baxdaa Mareykanka iyo Talyaaniga iyo Itoobiya annaga ka iibinayna inaan annaga tabaanada Talyaaniga ka keensano maana hooyada Soomaaliyeedna ay xero qaxootiga ku jirto ayadoo qaawan afar carruurna ay meed ka noqdeen meesha aan ka kacay Our next speaker will be Dr. Saeed Isa. He graduated from UCL 9 years ago in medicine. He often visits Somalia, and inshallah we'll be talking about our healthcare project. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فرتينتها بالعابين لغتها كهلا يسوارك تاجز dadka qaar Soomaaliya ku hadleen qaar Ingiriisi ku hadleen marka saadadku uga farxiyay Soomaali English ku hadlaa mid labaad horta caawo already aad baa u faraxsanahay laana maybe 9 years ago jaamacadana dhigan jiray maalintii koowaad jaamacadda bilaabay this is the medical school that's the other good thing meesha si fiican oo aqaana lecture field kana ku bilaabay lecture-kii ugu horeeyay ya marka انت صدق حفر بقول كلاس كي كجرتي لكن عاوز شو ماشي ابو حولي قاعد ابو حنا مالك مركا الحمد لله متى كانوا فرح سنه هذا اليوم ولا هنا محمود يا شرماكي اشاعيه they spoke very beautifully very elegantly انه حيابها كهلين انيغا هنا حويستمه ما بقاري كرم موقتها مركا ان شاء الله تعالى وحيابين راح حق عافمات كتابنايا experience in Somalia, and I often go back here. Maybe I give you some case examples or some projects I've been involved with. Or that Somalia Blaven, Mountain is very successful. Marka, at the beginning, you will see lots of slides with lots of numbers. It means nothing other than ina fahamtan Somalia حق عافماتك وحبا ميالا. حتى حد يكوهايو والله بارستيمول إنا هلنا لقيا. And worldwide Somali students and professionals حاجة عفماتكم حربان إنا كقبطان. And like I said, a couple of case studies, Operation Restore Home, and some points يدك سيئو عاون كران. So, the current situation in Somalia population is around 9 million. Since I was maybe 6 سنة جري 9 سنة جري واحد نقل جري 6 مليون 9 مليون. وأغنى ضد بدنا بنتك ضد بدنا واقع شيء. maybe واقع بدنا maybe واقعنا الله أعلم. But there hasn't been a census in Somalia since 1988, so no one can definitely tell you Somalia أنت قفوكنا. But when I go to London, Somali badan ila ku nool. Hada ay shiftu marka karo harifko Soomaaliya arka. Harifana marmaro arka laakiin inay ugu gudisa. And obviously we all work in different environments. Somali badan waa aragna. One other thing aad ugu farxsanahay waxa way WSSP وهل جروب الصومالي لكن لندن صومالي جروبيات بدن أو دليل جرا عاو حاول جدا ضدكي الوايسف كسعودة ATM كسعودة جروبيات بدن مركا نعمدها الفيري ضد العراق أو صوماليا أو different aspects أو ضد صوماليا إن عاويان إن يسكوي ماذا مركا that's amazing أنا وحياها الله يبقى كمتها anyways هذا كرجع قصة نقضه WHO this is from I think 2007 these are estimates. And they say, population growth can every year about 3%, but also, a number of people die. They don't know exactly how many people die. And the most important thing was maternal mortality and infant mortality. That's the most important. That's the best indicator of how successful a country is. And in Somalia, you can see. So number all I want you to take away the message is there's nothing in Somalia. For example, access to safe drinking water, you can see only 32% of the population have access to safe drinking water. Only 32% of the population. Yeah, you can see access to essential
drugs. These essential drugs are described as things like antibiotics, anti-malarials, you know, and these kind of medications. And only, you know, look, less than 1% of the Somali population has access to these medications. You know, it's sad because Anaga, you know, and a lot of you guys work here in hospitals, and where I work, you know, all these people come and they expect us to give them all kinds of medications for free. They don't even want to pay the £7 prescription fee, you know. But, you know, we have 1% of our people have access to sustainable medicines. You know, this is not good. And life expectancy, you know, it's كعادة وعفرتني صدق عفرتني شد وين ما بحبه هذا عفرتني تاسكا. Maternal mortality, the one I was talking about, you know, so for every 100,000 women, بقولك يكون ضمرة أو أورياشة، you know, Somalia حكون أنت 1,044 out of 100,000. Do you know how much in the UK? Anyone can I have a guess? Out of every 100,000 women in the UK who gets pregnant, how many of them die? It's about 6 for every 100,000. And again, كن أفرتني أفر. Because مركا يرى واحد مقلي جري عنقان رجوا محادعة هو يديس واحد يجري وأمه راعي وأحسن. You know, ما له بجري موقته. But you know, where we work in this country, if a pregnant woman dies, the chief executive of the hospital has to come on that same day to start an investigation. But Somalia, 1,000 die out of every 100,000. And if we said we're 9 million, how many die every day? It's not acceptable, brothers and sisters. Mukta. Mark, these other figures, you know, like I said, Alhamdulillah, apart from this HIV, the Africa Sihun Ohio, Somalia, so far, Alhamdulillah, we are protected, and the HIV rate in Somalia is generally accepted is kind of low. Maximum maybe 2 to 3%, and these 2 to 3%, the latest studies, they show that people who came back from the refugee camps in Ethiopia and Kenya. So, Alhamdulillah. And the facilities in Somalia, so if you're a doctor or a nurse or a radiographer or whatever, and you want to go back to Somalia, what is waiting for you to go back? You know, this I was amazed. This is from 2008 by a study by UNICEF, and it hasn't changed much. I can tell you that there's only, you know, 7 big hospitals in Somalia. Only 7 big hospitals, referral hospitals, and out of these 7, there's one in Hargeisa, one in Bosaso, one in Galkaya, and the other 4 they're in Mogadishu. So, you know, for a country that is so big, just to have 7 hospitals. So, for example, people who live in London, especially this area, this is UCLH, is one of the biggest hospitals in London. You take the bus number 24, you go to the Royal Free Hospital, second biggest hospital in the UK. You take the 134, you go to Whittington. You take the 29, you go to the North Middlesex. Do you understand what I'm saying? So, it's a lot of hospitals. Yeah, Marka, it's the same message. There's not much there. Yeah, how many doctors, how many nurses, how many, so on and so forth. So, the last count in 2007, they said there was 253 doctors in Somalia, and I can guarantee you some more died, especially Sham Hotel Marki Dutkan Bomgarena. You know, 14 doctors that day died, you know. So 253 as 14 Kajara. Marka, 253 doctors. When I was graduating from medical school, just in my year, there was 450 people. The hospital I work in, there's 340 doctors. Just the hospital I work in. And it covers a population of 300,000 people. In Somalia, there's 9 million people and we have 253 doctors. Yeah? And you know, most of the time doctors don't really save that many lives. It's the nurses and the midwives that make a big difference in developing countries. So the WHO and UNICEF and so on and so forth, they know if pregnant women have a trained midwife to look after them during the antenatal period and the delivery and the postnatal period, the death rate goes down by something like 80%.
So last time they counted, there was 116 midwives in Somalia. And Somalia, but the gist of it, there's not enough doctors, there's not enough nurses, and there's not enough midwives. So qofki profession kas kujira or skill kas haysta, or who doesn't spend maybe 1 or 2 weeks of their time back home trying to help people, then I think qofkas, you know, I don't know, habeenkii suu u seexdo because, you know, dambi badan baa loo qoraya. Yeah? Because walaasha iyo hooyada qof lamida ah wadankaaga ku dhimanaya. Mana haystaan wax caawiya. Adigana waxaa rabtaa Monday to Friday inaad shaqaysid, Saturday, Sunday, Westfield inaad aadid. Marka, people say Somalia nabad kama jirto moogtahay. Marka, this is a quote I got from some American lady, and she said, the elevator to success, because dadka hadda adduunka jooga is fast-paced. Everything has to be done. People ask me, how did you go to medical school? That's 6 years. 6 years, you know. And that's maybe 8-9 years ago. Marka, the elevator to success is out of order. Somalia dawlad kama jirto. Marka, it's up to us to take small steps, or maybe to take the stairs to go to maybe 4th floor, 5th floor, 115th floor, but you know, TV that can fix it. You know the advert for Strongbow. Sorry, Strongbow. There's these guys or Solvis wala, and the lift is out of order because they're drinking Strongbow. Salant Kupsiga 7th floor we go there. Marka, come here, Al-Abin. It's not good for your health. So, worldwide Somali students and professionals kujira, and you know waxaan ka fikiraynay see Soomaaliya xagga caafimaadka uga caawin karnaa. Aniga, in my opinion, Brother Mahmoud suu ka hadlayay, you know, the best, you know, qofka cunto hadduu haysan caafimaad ma ka fikiri karo moogtahay. Marka, I think obviously agriculture iyo sustainability, food sustainability were very important. But anaga, as WSSP, inaan magaalo tagno ama meel tagno oo dadkii cunto siino, waxayna weydiinayaan maxaa naga daaweynaysaa inoo daaweynaysaa hadda waa dharagnaa. Marka, it has to go hand in hand. Yeah? Marka, for us to do small projects, you know, what way spectacular that it's not going to carry on for many years. ما في يعني النبي صلى الله عليه وسلم ونوشة أجر روحها عمل روحها هو ناكسن عمل يريسة ولكن جوكتا. وقتها مركز something small that you can repeat every year, something small that can be there for a long time is better than trying to do one big thing or you know وحوين or 100 سكينز. Marka, we're trying to establish maybe small sustainable projects. We want to concentrate on areas that other you know, NGOs who get a lot of money concentrate on. You know, I was reading in one of these people, political activists blogs, in Somalia, there's lots of NGOs. Everywhere you go, every village you go, you'll see an NGO. And they said, for every £4 that NGO spends in Somalia, it spends £8 in Nairobi. For every £4 it spends in Somalia, it spends £8 in Nairobi. Hotel 5-star, Degayan, Gariala, Luwada. Marka, aniga waxaan u maleynaa dadkeena Soomaaliya alla waa tagaa dadka Soomaalida waxay sugaan inuu hay'ad caawiso. Laakiin hay'adan in ayaga lacagtooda ay cunayso ma oga. Marka, the vicious cycle of a hay'ad inaan sugayna inayna caawisi inaan ka baxno waa moogta aniga is caawino waa. Because qolkan qof kastoo jooga, you know, he's intelligent enough to come to this event and to know from the bottom of his heart that dadkiisa inuu caawiyaa laga baahan yahay. Marka anaga binaadan ahaan iyo dad Soomaaliyeed hadda isku tagno, of course NGO-gan oo ka takhalusi karnaa maalin. Because wax faa'iida inoo hayaan in the short term waa laga yaabaa, in the long term wax faa'iida inoo hayaan because we become dependent on them. Also, what we want to do is we want to work with existing universities and hospitals. For example, Hadda Somalia, alhamdulillah, maybe there's 4 medical schools, and 2 or 3 of them have already graduated people last year and this year. Marka wixii way jiraan in, you know, qofkii cilmi leh
For example, one of the universities I will talk about, they're asking people, you know, we will pay for your ticket, we will pay for where you're going to live. If you know something about biology, just come 2 weeks a year to us to teach our students biology. It's not a big thing, you know, so we can't do it. Talk about health promotion and, you know, mental health. Mental health is a big problem in Somalia. Massive problem. Everyone who's gone back to Somalia, wuu yaqaanaa magaalada markuu tago ama tuulada cid iska imaata markuu tago qof wala ma yaqaan jimcaale waa dhahay kaas jira qof kasta way jiraan. And furthermore, if you think about it, Ingiriiskan aan joogno, the biggest health problem Somalida haysta waa mental health. And I run tahay because from trauma and qaxooti and so on and so forth. I mean, I bet ceer lagu daabacay ilaahay. And lastly, WSSP in Somalia, from Ras Asayef to Ras Kamboni, we don't have no boundaries, we don't have affiliation to any land or any this and that. qof walba oo Soomaaliya oo Soomaali jooga meel kasta joogin oo ku tagno caawinaha. And obviously we are realistic people. We ognahay dadka Soomaaliya maanta waa dhul weyn, waa wadan weyn. qof walba markuu Soomaali rabo inuu ku noqdo, maybe aydiisu raba inuu soo salaam, ayda markaa soo salaamaysid noqo tuulada degan tahay wax ka caawa. Just salaam bas oo aad moogtahay. Marka we want to have no boundaries, inshallah ta'ala. And who's needed? Everyone. You know, every person, qof kasta oo Soomaaliya oo wax yaqaan waa loo baahan yahay. Qofkii ku dhaha, for example, Dr. Shamaka iyo aniga careers events oo Soomaalida loogu talagalo waa tagnaa, and waalidiinta su'aashana weydiyaan always waxa weeye cunugayga dhakhtar uu rabaa ama engineer inuu noqdo bas aan rabaa. Ma waxa ku dhahnaa cunugaaga hadduu wuxuu noqdo Soomaali uu caawin karaa asagana uu caawin karaa. Marka everyone, or every single skill you have, little skill you have, even if you can write something and you go and see and write about it, dadka say waa akhriyaan, you've done a benefit for the people. Marka qof kasta waa loo baahan yahay in the healthcare diet anyway, especially these psychologists, these psychiatrists, because this is the picture of mental health in Somalia. You know, Somalia, I think waxa ka yaala saddex isbitaal oo dadka waaran loogu talagalay iyo saddex dhakhtar oo Soomaaliya oo dadka waaran oo and Somalia dadka waaran, this is how they live. I don't know how good the picture is. You know, 80% of the time the chains were ku xiran yihiin. You know, so Ingiriiska dadka waaran waa ku badan yihiin, and you don't never see anyone who's chained up. Waxay ka fiyo yihiin dadka oo London jooga qaarkood moogtaa waana xirxiran moogtaa. Yeah. This so I had just 2 case studies oo aniga experience here ku arkay. Rabaa inaan tuso in wax la qaban karo bas. Yeah. So dadka meesha jooga inay istaan, oh, the problem is so big, where the hell do we start? Yeah, 1% of the people daawo haysta, 99% intee ka keenayna. Ma jirto waxaas moogtaa. These are 2 case examples oo aniga experiencegayga. One is they set up this medical school in 1999 because this whole area they didn't have any doctors. You know, they used to pay a lot of money to bring doctors from India and from Russia and from Ukraine. And obviously these foreign guys, they take your money but they don't help you a lot. Furthermore, they don't speak the language anyway. So xoogaa problem ay iska ahayd. Marka jaamacadan waxay isku dayday medical school inay samayso. Marka this is what they built. Donations ka jaamacadan waa laga ururiyay, and I'm sure some of you kale lacag way ku deeqsadeen way ku ururiyeen because they didn't have any charity or qof caawinay. Hal in London uu deganaa medical school ka markuu bilaabay, and this is the building he built. Yeah? And now لكن ما مضوها كيف جيران ما هتاس وقعد على كاس يا عدا حتى في جيران دليل سنة كيس الاتحاد as you can see قبلها ماشي جواز there's full equality in Somalia, don't worry. Yeah, in fact actually I think the last time the guy emailed me there was about 6 or 7 more girls than boys.
because we're not really she brought the belly out. Anyway, last time I had medical school they say oo socda sanadkii saddexaad ay ku jiraan dadkii sameeyay Ingiriiska ka tageen aniga camala. This is another hospital hadda magaalada Gaalkacyo laga furay. Ninka furay Talyaanigu ka imaaday and he contacted me markuu asaasayay and I go and visit him every 2 years for 2 weeks. Marka dadka Gaalkacyo aqoon Central Somalia ku taala anuma aqoon markii hore. This is the hospital. It's a very nice hospital. It's a women's hospital. So the guy, Marku Ivana, he tried to make it as female friendly as possible. So all the wards are single rooms, and all of the or you know, if completely they want the secluded area for the Sankaran, because the things he deals with, you know, wallahi, so we didn't have to solve the RRA, like in the WSSP, you know, this is the land they set up. This is the guy who's sitting down. And furthermore, they even made a football team, you know. And this is the operating theatre. It's a very nice modern operating theatre. You know, Mercantago is actually, you know, sometimes the assistants are more helpful than NHS because those general so pass me the scalpel, pass me the because I'm managing Hagen Bekuin, Diar Bekuin, or this guy, other families that and these guys, both the university and the hospital, they have the same problem. They need the same people. Just 2-3 weeks a year just help with a little project. Online teaching somewhere. You know, these little things are but obviously you don't see these things in the news, and I'm sure I could have given many examples from Somalia, but you will never see them in the news. Sorry, Somali channel, I'm Universal, I'm a website, because the guy kuma salaysna oo wax nabad ku salaysan oo dad la caawina because warka fiican you never hear it moogta marka people are thinking in here what the hell is this guy talking about so what some people did something in Somalia moogta but our aim is the people who said these things they're like us you know if they can do it we can do it you know I don't want to sound like Obama, but yes, we can, you know? We can. Look at it. And you're saying to yourself, how come this guy is so optimistic? You know why? Because 10 hours a day I deal with death, so I must be optimistic the rest of the time. No, it's because of this. Look, this worldwide Somali students, they have 4,500. Mohammed Kal was telling me now it's about 5,000 people. Shan kuno qofa day isku tagaan maxay qaban karaan? Yeah, shan kuno qof. Yeah, iska daa inay Soomaaliya qaadaan shantaas kuno qof. Mid kasta hadduu 10 baan la siiyo caawa oo shantaas kuno ما قل عجاء سنة صاحب كنتم في Somalia agriculture project على بلاد كرام. We have the people, that's the example. And how many in this room are Facebook fans of worldwide Somali students? Okay, let's go on all I want to say is what they can know about here, حاجة عاقبات الصومالي وحيا على الملأ. أنا جينا أساسا نقضي سنة واحد. السلام عليكم ورحمة الله. One of the founding members and the kind of engineer that pushes us to work. Qasim, he's been leading the project from the beginning, and he's going to be speaking to you about the recap of what's been happening so far in this organisation and the work that we've done, and hopefully show up the future of where we intend to go. So yeah, you guys can introduce Qasim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
كم حسنتي دمان كسر قبلياشة إن بدنا نكمل وحكي كرتنا الملك الدول سيدا مانشستر بريستول ليديز الملك الدول ألبا كم حسنتي وقت جينا نص وقتين الرجال إن شاء الله تعالى ما نتم بين وقت الظهور إن إله سبحانه وتعالى نكون ديسن إنه قدم إلافه ذل كان إذا كان عموش غيرنا حكرهم هذا اللي مصطفى يسهر أو UCL Somali Society جامعة أحد أمانة الجمهورية بريسيدنت كا يقول الترشر كا إمام كل نو سامحين عن إيفنتي تسمى جامعة لجنة ثيتر كان عن فوقنا يو كمان UCL Somali Society باش نفذ إيمان إلى مشان كمان كلهم تعلنها ولا لها بريسيدنت كا عبد الحفيظ يواشي أبيرة هذا المسنتي سيدا أمانة البرنامج كان يزداد معتي مصدر وقت من المختلف. جعلناها مدام وقت الويري هاينا زوجة قابي بولداش إن شاء الله. سير قبل عبتي WSB أو WOW Somali Students and Professionals. مدكور على جارسة الأفر سنة مستحسن. يعني معلومة محكمة عن ولاد يكجروا لجسدي علماء الصوماليين شق كبير. علماء الصوماليين وحا إله سبحانه وتعالى ورجينا أيضا نقصوا هناك سيدا أي نوتا كلين أما إيسان مركي دتك أسكول باتوران أما دتك مدح السر كلام أي إلهي ما دام دتك معارف إلهي إلهي ونور من قوتي سن كما مجري بشان أنتو ذبوا المسؤولين مركا علماء الشيخ كمدا أيا وحن ودي برنامج كذا مش هتسأل كذب إنه لا حد يدور ولا دي رسالة وقسمية ثلاثة قصص وهلا كذب شكل ربعها لكن محاضرة كم المحاضرين قصة عادي عجيب قصة أو أهل هم يقف مسلم كا أما وقف مسلم كا هم يقيس أنتوا اللي جاي إله سبحانه وتعالى إنه كبر الزقاي واحد كبرس أما ورقة كبرس أما سيد واحد كرجس يقول إله سبحانه وتعالى حسينا الشيخ أصبح أمي مسنا أو كهلاي واتدل كنا ما انتهى ستو 2008 مركان حضرت سنة أو خصوصا سنة ضد كنا سيدي وصو أمورين فكر ضعيفة فكر قاون أو عمل فوق جلنا أو ضد كنا قفل بكفكرة يتولد يسا فمن يسا حاس يسا قوس يسا يوم حالها يا ريه ولا يا ترى وأنا مجرم بدن تقول بدن تدل كنا وما زونا كنا واحد عن أسبوع ما راي مركز الشيخ وحكم لي دلك أسوق إحنا إنه يقطع تعطي وحيالها من سنة أهل وحن أسوق إحنا دل حال سدح بلو سنة محاولته أنا والله توم بلو تحاول كرنا وكيجا ومغلس البارح وقت إلهي بكل شيء وكل شيء حسن وحيكتمل تشيل أنتنا يفهم أنتنا مركز هدي أنا اللي شيء WSB أحن وحن عدد كل الدول أو جامعية أو قارب جامعية كبحين أو professionals ضد الشماكة وإنه جامعية professional side وحنا كوسة ليس هي ما رجع إن هلو ده نظر الأرض والمشين لكن نحن حققناها هو professionals كعم ضدك فعل كصورتي سيدا إننا وحنا كل سنة هاي ونسكون من سومالي نمو إسلامي وحنا وهو سومالي نمو مجد حاليا وضدك مرك إساك أي غاركود إن يكون فكرة أيين يا تركي يا رهبل وحصل نقول لا تسمع نقصد داري مركا أنا إلهي وحاوم هذين وضف فض أي نقطة زي شرباكي أنا قبل كان إسلام اللي شيخ محمود قاركون حسن شيء إن وحسن شيء إن لوصنا أو كل لوصنا يبرع عن السقاني والله من كان قبل كيسي قال من جرته وحنا وصل كويس ودين وحتى سمعنا وتحقق وكيكة من أنا وكل هذا اللي بيقولون كي ماذا تعرف تقولي شبابية وحنكفارنا وفي الله سبحانه وتعالى نسي قاركين بروكي ماذا قاركين هرجيسي كي ماذا وحنا قام كان معته دكتور مارتي عبد الغني أو كمبيوتر ساينتست أو جامعة كذا درسنا أو مادة سياتل واشنطن جو ورهرجيسي ما كان الشيء كيسن إن دمان دافع وده كان كلمة وجدوا إنه ما هين سكول سنة محل السكرة وحسكول سنة يا وفترة كرامة يبدأ هذا جو activity كده وحنا عاصم إنه حكم له activity إن ترى والله الصومالي ده وشيء إنه حكون إنه يدرس كاسبان هاي قارب بدنا ولا شقيني قارب بدنا صاحبنا هاي وحكون إنه وحرمنا مركي أبارها دعين وحكون إنه وحرمنا إن أنا كان ويسين وضد كده يرجع معليه وأن الحدود تقسم منها أما حكون إنه وحصل قبلنا وحي هذا أوكي ديار بعمر هاي بثلاثين بان ستة بان قاربون ستة بان قاربون لا بقول بان ويجي أنتوا شقيين كم يدوا حسوستا وأنا ميجي استشيء ويجي أنتوا شقيين وده أنت سشقي أنت الفيلم اللي أسكال أنت أنا أدري عن مرتي برنامج كانوا في حسنا
marka alxamdulillah kulwaad lacag 6 kun ayaa waxaan naga soo gashay darawalada qaasatan dadka first u shaqeeyo oo first drivers u shaqeeyo si ay barnaamijka nagala qayb qaataan aan u bixinay jobs abaaraha markay dhaceen waxaan rabnay operation restore home ama barnaamijka sanadka dambe waddanka ugu laabanayno in aan July ama sameyno this year soo dhaaf this sanadka ugu jiro ama June oo kale laakiin waxaan u sameeyay weyn sida because waddankeenu abaara ka taagan yihiin qofna kaama rumaysanayo beeran qodayna ururkaadi waleeyahay hadda waxaan afku qabtay idin marka waxaan ku dadaalnay inaan kaam sameyno kaamkaasna waxaan ku duudinay ku dhawaad 1000 qofood bishii Ramadaan soddonka maalmood oo dhan 1000 qofood ayaa maanta ku duudinay waa wax iska simple ah ma awoodin wax ka badan inaan sameyno laakiin waxaan isku daynay activity-ga isticmaalay dada waxa ka mid ah walaal Soomaaliyeed oo New Zealand joogto kala gabadha oo ayaan magaceeda ciid markaan soo tukaday soo cadil qaasim nacaga meesha soo qaadeen Western Union Ingiriis saxo mid Western Union waxba kama soo qaadeen driver license waxba intay qorteen ugu dhahan lacagta New Zealand ka tib marka dadkaasna ismaar Soomaalnimo u sheegnay walaalaanaha dadka u shaqeynaa waxa u sheegnay anaga Soomaaliyaanahay wax nooga dambeey ma jiraan wax kale wax lagu waayo aan all we do is dadkeena in aan kaalmayno anagu ilaahayna tala saarayno wax loo qabanayno marka activity-gaas iyo barnaamijkaas aan sameynay still hadda lacagaha drought ku saabsan waxyaalo badan ayaan keenaa waxaan rajaynaynaa insha Allah gobolada dalkeena kale inaan sii gaarsiino haddii ilaahay rado waxaas oo dhan waxaan u sameynaynaa inaan barnaamijka ugu muhiimsan ee operation restore home aan ku soo qaadano oo ah caafimaadka waxbarashada iyo agriculture-ka maxaa saddexdaas barnaamij uga fikirnay saddexdaas barnaamij waxa uga fikirnay inaan sanadka dambe waddankan u laabno aniga as a geologist ahaan ama air scientist field shaqo ku maleeyay laakiin mid kasta ay kamid waa ka qayb qaadanaya sababtoo ah dadka waxa hogaaminaya ragga arkaysay oo maartay cilmi ahaan iyo aqoon ahaan nooga fiican kulligeena waxaan rabnaa in barnaamijyadan aan ku dadaaleyno waddankeena inaan ka qayb qaadano si dalkan iyo dadkan anagu la sugaa cid kale ma sugaayo barnaamijka wax beeraha kale marka la sheekaystay Sheekh Maxamed waxaan ku yiraahdaa beeraha wabina waa lahayn dadweynuhu waa deganeen aadan u jeclaa sababtoo ah buukad maniga ciyaalka la siiyay wadamadan aniga lama sii jirin xab meel yariis oo guriga dhexdiisa ku taala waxa la intaas kabsar calanka abuur kabsar calanka ku abuur jiray gabdhaha dariskana oo tagi jiray waxa ana home delivery ku keena adiga iska taqaan laga ay ku home delivery kabsar calanka guriga ugu geen jiray si abaartay xogaagii ka soo habeystay marka joogaas waxa sameeyay تصعيد رواتب وجبد marka wallahi wadalkeena wal kasta wax lagu abuuro ayuu leeyahay marka ama kabsar caleen abuur ama cunto kala abuur waan awoodnaa taladina waa ilaahay subhanahu wa ta'ala wasaarnayna annagana wax waa sameyn karnaa maalinta ku fikirayna inaan shaqada bilaabno qaarkeen waxay ahaayeen adduunka ka dib qaarkeen shaqo iska ahaayeen iska soco ama wax iska sameey marka insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa barnaamijkan ugu horeeyo agriculture ka inuu noqdo xarunta ama meesha ugu muhiimsan ee waddanka wax looga qaban doono waa beeraha caafimaadka meesha beer ka sameeyay dad waxay ku leeyihiin okay beeraha sameeyay shaqaaleysiisay waxay u baahan yihiin caafimaad dadkaas shaqaalahooda waxaan rabnaa insha Allah base aan beerta ka sameeyno inaan caafimaadka ka sameeyno sida isla markaasna aan macallimiinta waddanka dhexdiisa joogto ay wax ku baranaayeen 22 waxaan rabnaa inaan waddankeena u laabano annagoo dad Soomaali ah annagoo dad Islaam ah oo waddankeena u soo hilownay gobolka waddankeena uu kala xiran yahay hebel isku tilmaamaa laakiin sida dadka Saciid sheegay anaga boundaries ma lihin Soomaaliya anahay hadda Soomaaliya tahay turjubaan ma kala baahin qaar la ku sii waxa uu meeynaa wax wada qabsano qofka marka waxaan ku dadaalinaa inaan dadka ka dhaadhicino dadkeena 20 sano qaar badan ka mid waa baahlobeen marka waxaan isku dadaalinaa insha Allah ta'ala aan ka dhahno dadka lama cuno let's just do something waddankeena iyo horumar ku gaarsiin karno hamiga marka qofka hadduusan hami lahayn inaan waxaan qaban karin wallahi weligeed ma gaari karno maxaan ku qaban karnaa operation restore home ina sameynarna waddanka u laabano anaga waddanka anaga faramarna u laabanayna uma laaban karno okay waxaan helnay dad Saciid dad Shamaaki iyo arrimaha beeraha kale waa aragteen inta tractors oo loo baahan yahay ama inta barnaamij la sameynayo ma awoodi karno inaan waxaas dhan fulino anagoo dadkeena Soomaaliyeed ugu taageerin inta barnaamijka wadnay waxaan la soo xiriiray hay'ado badan oo mid Mareykan mid kale oo qurumaha ka dhaxaysa ka mid yihiin jimciyada qurumaha ka dhaxaysa ay leeyihiin magacyada ma sheegayo iyo mid islaamig ah oo kuwan islaamig waaweyn magacyada inta badan waxay dhaheen mid Mareykanka ah ugu cajabay waxay tiri teamkiina tigida ay soo direen Mareykan maada and I'm telling you the truth wallahi wax aan ugu waxayna ma jiro tigida ay soo direen Minneapolis maada especially Minneapolis si aad ula shaqaysiin hay'adeena waxaan ku dhahnay maxay idin shaqeynaa maxaan rabtay inaad la shaqeyn barnaamijkiina ka helnay inaad la shaqeynaa laakiin annaga noo Soomaaliyeed
waxaan ku dhahnay 21 sano ay dadkeena sugayeen dad ay ku qabto mana dhici karto inaan inta maanta wax bilaabno aan waddankeena iyo dalkeena ku qabno inaan hay'ad Mareykan ama cadaan ama madow ama muslim cid yarta ahaatay aan Soomaaliyeed aan hoostagno sidaa darteed annaga tigidhkan iska bixinayno annaga aan ummadda Soomaaliyeed u tegi doono laakiin hadda naga la ahaado waa gartay volunteers marka Soomaalida inta badan waxaa lagu maamulaa ardayda Soomaalida ah ay West wax ku barata intooda badan waxay ka cararaan ama ay ku dadaalaan inay la shaqeeyaan hay'adaha Soomaaliyeed dhalinyarada jaamacadaha ku jirtaan ugu barnaamijkan oo ma xumo inaad dalka Soomaaliya la shaqeyso laakiin fadlan isku day dalkaaga iyo dadkaaga ku baahan Falastiin waa walaalaheen waa muslimiin wadada muslimiina waa dad dhibaato haysto laakiin inuu runta isku sheegno Soomaaliya tahay Falastiin dadis waxa way meesha dib joogtaa adiga dad ugu horeeyay Madiina waa Soomaaliya kulliga olay kulliga dumisabta isku dibirkaagina dib ku qowto marka hore asoo hadaa dambas iska qiicay mid kale isku diina dimiso laakiin dadka dhalinyaradan waa hooyooyinkii waalidiintii iyo aabayaashan waxa ku leeyahay caruurtiina kala hadina qabyaalada iyo wax la mid ah si aysan uga cararin jinsiyadooda iyo dadka yihiin haddaan taas u soo laabto arday badan waxaa arkaysaa oo hay'adii doortay in la shaqeeyaan annaga waan u sheegno waxaan ahanay insha 40 milyan marka waxaa ka mid ah waxyaalaha la sheegay 40 milyan sanadkiina soo gasho 10 outkeeda ruuxa ku dhaara 40 maana billion soo galaan that's not the case anaga dala ay dalaarna inaan ku qabano 40 lahaa ama lahaa inta najaabkana ka wada bixinaa su'aalahaas maxaa u keenay dad shaqaaka qaar la siiyo last week aan eventing ina qabano booking clash aan ugu dhacay ticket uu soo gatay wuxuu shaqeeyaa one of the big companies Bragg ku yaalo ama Czech Republic oo sameeyo daawooyinka in fact companyga afraad adduunka weyn daawooyinka soo saaro waxaa laga yaabaa dadkeena in bur loo qaso leeyahay waa asma daawooyinka manufacturing kana wixii runuu ka shaqeeyaa oo ogyahay waxaan markii eventinga baaqtay oo u sheegnay dadka eventinga waa baaqtay clash aan ugu dhacay mid kale oo baahna ticketka loo soo qastay marka waxaan markii dambe aan ka xishoono aan shirmaaka ticketka anaga habeenan oo ka soo dhacay dad Soomaaliyeed iyo worldwide Somali students and professionals waxay aruriyaan ummadda loogu talagalay waxaan ugu darmoogay waxba ka qaadan maayo marka عندنا جابكنا وأنت سوقرسينو أما كفن كلام أما كوبحينو لكن واحد جبت ستيج عد كلا أوباهنا عد كلا من كقول ستيج عدد كلا هيئات برنامج كوضع معمول كأنا هين ستيج كاسنو ستيج كلا أوباهنا هم الصوماليين أنا ما أودي كرنو أنت اللي شيء ما أودنو إن أقرنو هيئات أمريكان هات أم كينيان هات أم إثيوبيان هات أم عدة هات أنا نكالمي أم UN هات waxaan ka codsanaynaa ummadda dalkeena inay fahmaan boqolkun oo qof baarna inaan register garayno oo insha Allah database-keeda ee Facebook halkaas aad ka arki kartaa www.wssb.org.so .so waa taqaanaa waa domainka waddankeena Soomaaliya lacagtaas markaa dhiibayna .so dadka inta badan dadku ay isticmaalaan $50 ku bixinay waxaan ku dhahay dumar dowladda Soomaaliya ku xisaabtami doona lacagta meesha aad insha Allah in near future marka dad SO waa gelisan waa ku register garaysan qof kasto adeegkeeda kamid waxa rabnaa inuu caaw mas'uuliyadda qaato 10 qof 20 qof 50 qof inta keen £5 £2 £3 £10 waxa uu doonayay ku bixin boqol kun qof arna inaan diiwaan galino oo barnaamijyadan aan sameynayno dhaho anaga askar haddana barnaamijkan if you don't take the ownership of these programs we will not be able to do anything waddanka waa tegayna anaga ma joogayno ticketkayga already anigu waa overtime baa sii shaqeynaya dhib walaa bilka markii laga tago waa tegaynaa waddanka waana tegi doonaa insha Allah tacaala sanadka dambe laakiin barnaamijyadan ma fulin doono haddii aadan taageerin saa idin sheegna anaga madaxadeed waxaan ka qabnaa inaan cid kala barino ilaahaan baryaynaa dadkeena waxaa leenahay this is your problem this is your problem qof saddex qof uu heli karo waxaan ku dadaalaynaa inaan insha Allah 3 bilood ee soo socoto registration period ku bilaabo maanta laga bilaabo 19 bisha November 2011 waxaan rabnaa 3 bilood kadib inta qof ay is-register garaysay 100 kun rabnaa laakiin anaga tens of thousands is register garaya xataa haddii aan kuna inaan barnaamij ku fulino laakiin qof kasta mas'uuliyad waa inuu qaataa oo dareemaa this is our programs opportunity and offer anaga dad world class professionals aan soo u baahan yahay insha Allah tacaala adduunyada waa u sheegnay waxaan anaga Soomaaliyeed lahaa oo haddaan wax qabsano isku soo jeesano waa qabsan karnaa sida darteed dad badan ayaa maaragtay nala yaabayay hadda waxay yiraahdaan walahi waxbay qabsadeen waxbay sameeyeen waana arki doontaa sawirro soo aan dad aan miitino kula kulanay hay'ad islaamiga markii nala soo xirtay u dhahday 6 bisha ay waxa qabanay shir
حقوق كمدن حافظا أو كانسل عوالة أبو مهسية نوصل لما كمدن إن عن قصة من الشر أيام ما ردت بدن أسبوعية من أفنتي العقل أو ولا عقل جوبز كأليس هيئات ضد نصح واحد يعني أنا قاعد المعمول هنا عن واحد سمعنا هنا حقول عن واحد مهسنتي اسم أنا قلنا لما معموله إحنا لو مسميه هذا مرتين نقدر قدرسي العقل نوكل كم كنا وكاسا أنا قلنا بنك أنا وحن فيديو يا شام كل عنا هاي محمد كعقار الله سي فيديو جو أنت بدل هذي وقت بدك تسوي كذا أساسي كلاس نجربه ولا كعب يقولون تاسعنا خير الله سي كنت دارنا الفيديو بس إن عن قرارات كسوقرنا وعن درسين وحاتين عم هناك عن نقطتين لو مركز هذا الموضوع توسعون ويس مركز ضدكم حنقول شيء قلنا عد بالآدم مرة إلى محقبستي ولا مسلم إيجار وحير رسمان ما تها قال المستخصص أذكر أنا أبو معمولنا إلى يوم قدر بال يكذب محل هذا بال يكذب أسبوع إن ما يتحفظ أم the leader of the council أو نوغير ميتين أو نقرأ كل مو أو هذا وحكي مارت وسومالي ما قلت كانوا بشكل كسنة سيدا أنا مارت قبل إن سيدا أردت برنامج ما كنت بلاون إسلام كسمينه مركز زورنا هذا كوسات الأركيسين وهذا mayor of the council mayor of محل حافظة كمدن إذا leader of the council event نوجو سميان وحصل لنا مارت حرير كاس إيو event تيجي نو هذي أما event تيجي مشى أو نوجو قابلين المشى سمي سنة council عوالي the only council أو سومالي أو حافظة كتير أنا نقول مدعين إنه واقع غافر هدي على إدمو عن صدق هذا بلود الصوص عطر registration ad massive فاسمينه فيديو advertisement أردن وحركي دوتان على فيسبوك يوتيوب وحول بنسمينه وحسبتنا صدق هذا بلود الصوص عطر إني هرد ضد كسر على كل بسيليه إن أنا حلقة بسنة وده كان أنا حلقة بسنة عن عالم كان مدته 10 years 5 years كده عن كنت سنة إن أنا ضد حلقة بسنة كرنا سكيل لو ضد كبار كنا عروش وانتو حكم مرة أنا that's not the case عروتي ده أنا الحمد لله لو ولا أي جوكتو the only gift I can give them is their home nothing else قولوا عايش ودي سو حقيقي وقتها جلو عن إمارات سنتكجتو مركي له وحد على كريدت فرانش وأنا سكوت ما عرفتي على عقد أنا صورنا ودريم كنا برامشيس أما عن كذا مصر ولا يا صوماليا وأنت إمارات مركي أنت العقد اللي قاتنا أو اللي صار الراح وحنطينا عمل وضد كنا ما وقت المجد that's the only way عرفت على هدار تدينا فيوتشر وسميسن أما أحسن وسميسن فضل بقول لو أتنفع كنت بان شنبع حلفا كل بحي مستقبل جود ودك ويسوق دق لها أنا قد نبض وحسمينا إن النبض أساس ويه من بعمان يسرنا وصومالي رجع وزير ذي أمرها هندو كجراء متشكل سنو في عندي محاسب يصير مركز أسرع روح لسمينا يقوارك إن سياسة وصدر وحي سوف في عندي لكن تدو سبعتين هاي غير الله كسي ونصنع بل إيش اللي حكون نصنع وعويري ده اللي كده يكون ريا كده على charity حتى ما حكون charity مني غير الله كسي that's the first thing charity وعلى أنت أحسن ما يو أما grant أما مال أحسن ما يو أو كل هذا بس أنا charity مني نعم كده yes non-profit organization هم وانا لكن charity مني وحنا ده كودي وهلو ده كودي بنحققتان أس كنا بيرها رنا حكي قبلنا كمبني سارت إنه عارف بيرها عافمات education أنت صح قبلنا حكون charity مني وكيرنا وركس كده يا سبيكرز يا مش كويس في الإيفنتينج مرك إيفنتينج أنا زوج سعيد اللي هلا أقول إيفنت وحكويس أنا عدد أود كودر بين حقوقتان charity منه سياسة واحد بركتين ضد كنا ما لهم كجرو إلهي قاعد يسوي وضد في عنها هذه كتوسية أقول كركستان أنا وحرنا مستقبل كمدحونياش إن متل دون وزيرنا إن متل دون أنا بيشارك وده بحسن كرنا عافمات كان يبيران وحوس مننا ما إن أنا كباش أو ما أعرف كل ده اسمه كبني العكس مستر وإن قف قصة صوماليا to make the field proud أو أوكي ضد واحد قبسن كرو صوماليا هاي ضد واحد قبسن كرو أجد بيو ضد بارتي وحاجة أجد بيو جلوبال كلنا قبسن كرو مركو حقولي ما يبي وقدمتين وحابين في عن سياسيين ناس يوكشين مركز only way forward is that حنقول آخر له خصوصية ونشوف عن هدي جرتو أو ضد وناكسر إجران وحيد the only way يكون بالك رام واحد تاعي هدي بوشده هجرتو وناقل السماء ضد وحي أودان إلى وناقل أصلا إلى هنا نمضي يعاي وقام في عون نصر في حدنا لكن كل شيء عام خلطات سم وقبيل اسكن عليه وقول اسكولته أو قر اسكولته
can't get anywhere. So waxaan ku dhahnay insha Allah taala waxaan ana bulshadeena dhisno bulshadeena markaan dhisnana ayaan hoggaanka iyo wax walba insha Allah taala uu Ilaahay uu noo hagaajinaya haddaan inuu Ilaahay ummadda bedelo ummadda waa in ay isbedesho inaan waddankeena ugu yeerno inaan barnaamijkaas nagala qayb qaatiin saddexdan bilood ee soo socota registrationka ugu muhiimsan waxaan la xiriiri doonaa dhammaan madaxda Soomaalida gobolada ay joogaan oo dhan iyo cid kasta madaxda Soomaaliyeed waxaan u sheegi doonaa inaan anaga fresh ku ahayn ama aan waddan ka rabin inaan waliba aan la shaqeynayno cid kasta oo wanaagga waddankeena ka qabanayso inaan maaragtay wax aan shaqadeena ka ahayn soo galaynin ummadeena rabno sidaan wax ugu qaban lahayn ilaahay idinkiis dad wanaagsan oo wax qaban karo oo dalkooda iyo dadkooda ugu qaban kara ayaa nahay aan ilaahay talada saarano yaanana ka quusanin campaignkan asaga ah ee maanta aad ila hadlaynana bil kasta waxaa laga soo deyn doonaa Royal TV bil kasta waxay noo jaalis siiyeen isbuuca aan qorayeen isbuuca wada socon weysay bil kasta inaan haddii aan leedno Royal TV ka soo deyn doono magaalooyinka iyo gobolada aan tagno barnaamijyada aan ka doobno aad ka daawan doontiin lagu soo celcelin doono qof kasta oo wadani ah oo Soomaali ah dalkiisa iyo dadkiisa maanta inuu qaban karo wixii tageen 22 sanada guddaan ku jirnay hadda aan ka soo kacno فضلا قف كستنا مسؤولية ده قاتو إلهنا محمد رجينا إنه ضل كان يدك كان أنا ونبذ النوعليو هذا المهندسين والسلام عليكم ورحمة الله. Fortunately, we have more time, so inshallah we'll be having a question and answer session. So if anyone has any questions, you'd like to, well, you're very eager, okay? إبراهيم يسوع عشان نجيب حيث إبراهيم أبوزين تتكلم الصومالية لندن دكان باستن أرينا أقول الشقيا شغلي سنة فهمت كذا تقولون بعض مركا ميد الكواد أو ريسك أسسمنت تيجا Councillor Nalajoga, like he said, the right-wing people, they say health and safety marketing is out of control. And I remember, you know, marka lecture field is organized on Gower Street, there's some railings marked from Landing Belagis to Landing Belagis. محدا عم تقانا رailing كاسلودي I think 99 كي امتحانا من أهل الوقت اللي كبرنا كبحثي نامي قش كاريات جينا مركا حالها it's a little bit serious. Let's put these railings so that كلامي توصل بيه. Anyhow, the risk assessment Somalia هرتا مالك استوى هذا. تذكر هذا. هذا ربيت سما تام كينا Somalia هذا دوارك هذا هولندا كبحال مدنيا كبحال بيارده بوصلة كم هذا. بقول كذا سجاش تذكر سوانو. أنت عندك Somalia هذا. Anyways, maxaa ka wadaa Soomaaliya sanadkasta waa la aadaa dadkan way soo noqdaan. I don't think we're not going to pretend to say Somalia meesha ka tirtid nabad waaye xabad kama baxsanaysid waxaas dhan kuma dhahayn laakiin adiga bini aadan ahaan you assess yourself and the risk you want to take and say, you know, I'm willing to take this risk to go in a measure Adam in a measure now. Marka aniga qofku ma qasbeen inta aad ama inta aadin laakiin you know just quickly since say 2000 since the year 2000 meel qof aan Soomaaliya aad gacanta ku raawtay. Asoo noqotay Soomaaliya. Assalamu alaykum warahmatullahi. Saciid aad ma santahay. سؤال سو شيء dadka Soomaaliya waa aadaan dad badan waa tagaan laakiin waxaan sheegay inta ku tagayno laguma tagin waxaan ku dadaalnaa walaalkay Ibrahim waa kuma santaa su'aasha waxaan ku dadaalnaa in aan arinta amniga dhalinyarada ama jaamacadaha ka baxay professionalska waddanka aad doon in aad uga taxadir doono waxaana hadaayad energy ku daray in aan la xiriiri doono dhammaan maamulada Soomaalida meel kasta joogaan waddankeena ma wada ololay qayb kamid ah guulaysi marka insha Allah qaybaha safeka ah iyo dhammaan kuwa gubanaya naftooda la xiriirina waxaan ku weydiisanayaa in arintaas amniga ku sareysan aan si detail ah kala hadalno sidii arintaas dawladda u qaadi lahayd qaybtii waddankaas ama lagu soo dhaweysaa ama darmeynka ama ka helno security details in waddanka kala amaan helno gobolkeena waxaan noqoto magaaladeena waxaan noqoto halkaas ayaa dadkeena halkaas ayna caafimaadka iyo beeraha iyo bulshada ka sameynayna insha Allah taala. More questions?
بعض ميل كسمة ستين ناشون شو بيمانه وما زلت راشد هرتا بيها ويريه لكن وحاجر إنك كروبس عم مرها عم بيرنو وكانوا عيدوين وبيه وباهن لكن at the end of the day ayaga baahidi way bixinayaan marka xilliga roobaadka hadii laga faa'iideysto aan soo saaran karnaa cunto ugu filan sida masagada oo kale hadii aan beerno xilliga roobka uu ku filan yahay inuu soo saaro cunto ugu filan masagada iyo galleyda waxaan ka wada masagada iyo digirta oo kale waxaad u baahan tahay inaad hesho qudaarta iyo mataqaana galleyda oo kaleeto biyo badan baa ugu baahan tahay kuwaasna biyaha u leeyahay marka haddii allocation loo sameeyo macnaha miraha haddii la yiraahdo aan masagada oo kale u dayno dhulka roobka galleyda oo kale aan u dayno ama bataati oo kale aan u dayno dhulka ay u baahan yihiin yani waa helaynaa resources ugu filan laakiin allocationkii baa naga maqan أنا هو حتى هيك وحكي مثلا شوف أنا مال قرح وجهي بروبنا كم بدي كم بدي أمشي بدقين على رهب وحياة وجهه زين قلت بدو كلية تدقي ما كدرات ما كدا وحده دري واحد كم طح تدكاس وخلي بيها وخلي حكيتي حلاي ما مكينة ذا جرو واحد جرو بيجي نقطة حتى كين لقيت ولا بين لندن ويجوبي وكسب قضية موتور بقى موتور كبير صارت فيه من بيرة ورابشة مركز هدي كسوق هذا كانت هي 60 resources كوب فلان أمريكا أقولون كتير علاش كل كان علاش وما باهم إن نقطة وده يورو وكالات هذا غريك وكالات إلى أفر بقول أو متر بهاوس نقطة لكن الصومالي لواتن صدر متر بيو معان بعد كل هريسة طبعا متر بيو وكل هريسة لكن بيد أنا وضم بير خصوصي سنكر لواتن متر لكن بيو معان وحوله يبلغ مكفلا بهريسة كي هو سنة لقى مفاعل يسوي جراوند ووتر في الصومالي هداية statistics زي ما كان وقت زي جراوند ووتر كلامتها وودن كده كوي وديجا على الطابون وصلت كسكسو بتاع كسكبرة قرح الراعة فابريشن سميه مركا تنكب بيها يعني وانا كفا إذا سمعني نجمة أيام توجد بقى سكتشرة واحد كوب فتح مودية بضع توجد جاس كما فائدة سمعني تان توجد الاحتساعين كقضني وما الناس من هنا وات عن هافست عن قصة منه أما عن قصة من الريسيرف والنوك بيه ويسكتها وبيده ويكتها ويمران بدل القدرة مركز الريسورسز كي نغميرة تكنيكالي بان نغميرة. Next question. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنتي waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaan imaado xafladan qiimaha badan oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda Soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxaan filayaa kuwa gudaha jooga inay malaha xubin ka yihiin waa runtii wax lagu farxo waxay ii muujinaysaa dalkeena inuu rajo leeyahay caawa caawa igu jira waxa way dalkeena inuu rajo leeyahay haddii inta badan gabdho iyo wiilba ay jaamacad dhigtaan ama ay dugsiyo sare dhigtaan ama ay college ku jiraan rajaan leenahay waliba intan waa sample marka waa xafladii saddexaad oo ardayda jaamacadaha ay soo qabanqaabiyaan oo ka qayb galo markastana waxaan arkaa dad ujeedka gudsan kuwii horaan tagay intiina ma joogin marka waxaad moodaa in la badan yahay mashruucan aad sameynaysaan runtii waa mashruuc aad iyo aad u qiimo badan Soomaalidu dhaqan bay leedahay la yiraahdo iskaa wax u qabso iskaa wax u qabsana waa volunteers marka haddaanan annaga wax qabsan oo aan u noqon dhaqankeennii ahaa in la iscaawiyo
waxa aad samaynaysaan waa arrin noble ah oo aad loogu farxo haddaan nahay dhalinyarada cuslaatayna waxaan diyaar u nahay in aan hiil iyo hooba wixii gacantu awoodo iyo wixii madaxa awoodo inaan idin garab istaagno ayaan diyaar u nahay xaflada badiya mataqaanaa ii sheeg muxuu ahay kulanada noocaana si dadka loo wacyigeliyo kaas waa caawa waxay hooyooyin badan oo runtii hooyooyinka khayr allah siiyo dhalinyarada faraha badan ee jaamacadaha ku jirta inta badan waxaa xoogga saaray oo ku dadaala hooyooyinka creditkaasna in la siiyo mudan waxaa kaligoon liilaa waxa weeye beero iyo tacliin iyo medicine yaan lagu ekayn waxaa iyana muhiim ah in lagu daro engineering muhiim wey arrinta uu ka dhawaajiyey ninka odaga ah xagga Soomaaliya ka yimid ee ah biyaha Soomaaliya roobka ka da'a sanadkii gobolada ugu abaarta badan haddii loo celiyo waa ku filan yahay marka waxaan u baahanahay injineero waadiyada ama togaga mara gobolada qaar xira waa arrin la samayn karo مثلا gobolada togdheer sool sanaag waxay leeyihiin togag aad u waaweyn sida dharoor oo kale intiina aan noqon ama inta ka timid garan karaa haddii togaga la xiro biyaha ka daa buuraha ceerigaabay dhulkaas ama buuraha gooliskana baday ku shubaan biyahaas haddii la xiro mawsamka dayrta kaliya biyaha haddii la celiyo waxay ku filan yihiin ilaa dayrta kale iska badaa kuwa guga marka waxaan u baahanaa injineeradana inaad recruit garaysaan waayo waxaa la samayn karaa biyo xiraano badan buundooyin badan ayaa go'ay waddanka dib u dhisku ayuu u baahan yahay injineeradana ku daro oo maaragtay soo maaragtay lagu daro ka kale waxaad ku dadaashaan in idinkoo ururkii ah inaad xoojisaan waxaa la yiraahdo professional societieska ama mataqaanaa wixii injineera ama dhakhaatiira ama beeraleeya inaad mataqaanaa su ururisaan idinkoo within maaragtay daladiina within this umbrella si loo markaa loo helo looga gudbo qofka halku ku abtirsan lahaa dhalasho inuu ku abtirsado professionkiisa waxa uu yahay waa sida aan uga gudbo aniga takhasuskayga waa beeraha marka beeraha waa arrin aan si fiican maaragtay uga soo shaqeeyey 6 sano UN-ka dalka Cumaan Yemen Soomaaliya intaas beeraha oo ka shaqeeyay dibkana haysta Soomaaliya maanta waxa weeye dhul la beerto waa leenahay biyana waa leenahay laakiin waxa dadka inta badan u diiday beerashada waa amni darro oo abaartana waxa keenay abaartan waa man made ma aha abaar dabiici ah waa man made marka waxa keenay waa amni darro waxa kale oo noogu waxa weeye xilliga ay soo go'ayaan beeraha waa xilliga musaacadooyinka la keeno si qofka Soomaaliga niyada looga dilo wana galay damba ama masagada uu beero marka kaas waxa loo baahanyaa marka in laga gudbo oo aan dadkeena u sheegno in ay beertaan muxuu ahay marka ay wax beeranayaan waxa kale oo loo bedelay waxa la yiraahdo cash crop ama waxyaabaha sisinta iyo dibadda loo iibgeeyo iyagana aad u batay oo dhulkii oo dhan mataqaana la wareegay ayaa jira marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay hawshan guulaysato waan idin garab taaganahay so haddii xogaa anigana labistis ku daro waxaan dhihi lahaa waddankeena wuxuu leeyahay waxa lagu tilmaami karo dhul oo u dhigmata 640,000 oo square kilometers ah Soomaaliya marka economy-ga haddii la soo celinayo waxaa loo baahan yahay sidoo professorka sheegay dad oo engineers ah dad oo wax macnaha dhisi kara inay soo baxaan oo waddankii ku noqdaan jidadka noo dhisaan airportada noo dhisaan hospitaalada noo dhisaan marka insha Allah qorshadooda ku jirta in oo maadooyinka kale dadkii tacliinta ku lahaa inay waddanka waxooga qabtaan insha Allah haddii aad u soo noqdo Ibrahim su-aasha weydiiyey oo runtii programkan haddii aan qabanayno mid ugu muhiim ah inay tahay waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliya hadda macnaha shada ka wada waxyaalaha naga sugayaan waxa waaye inaan kulligeen intaa badno oo dhahno
Soomaaliya muu ku noqon karno dagaalka ka socda iyo dhibaatada ka socota darteed wax muu qabsan karo tusaale ahaan haddaa idin sheego runtii adduunka meelo badan oo dagaal ka socdo ee dadka sanad kasta u aadaan dartood inay waddankooda wax u qabtaan tusaale waxaa ka ah Falastiin waa la socotiin convoy I think magaca lagu magacaabi karo Viva Palestine in oo 2 sano ama 3 sano ka hor in oo inta raashin iyo dhar iyo equipment intii dadka Falastiinka qalbiga ugu jira iyo dadka Falastiinka ah intay qaateen basas iyo ships waddankooda wax ku geeyeen Beirut is another example waa waddan dagaal ka socdo لكن every year dad أنا بيروت يا وتجا وضن كله كذبتان مركب وأغنى أماكن إنه يري هاي وأغنى سوماليا ببعتنا كسرته لكن at the same time وأنا أنك درجة إنا يرين وأنا قرب وجهي قاري كرنا وليه كرنا واحد كسر وضن كان كجرا حلوة وهلينا ما نكبق يعني إنا وضن كان فنون لكن waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo ujeedadii halkan maanta aan isugu muhiimka ahayd oo ahayd inay ardayda Soomaalida iyo professionalku ay doonayaan in anagu wax qabsano aan cidna ku tashanin oo sanna loo talin dad dabadda ka socdo aan danteena wadanin aan anagu isku tashano qaasim weyn ka xishooday wuxuu yiri wax yar bixiya wax yar baan gabar waxa haysataan dadkeena aan siino si mission ko weyn galo waa soo ducaynaa ma shaqeynayso ducadu waa gooni waxa loo baahan yahay inaad tangareysaan gacantana jabki gelisaan insha Allah taala waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay